الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وزيرك وزارة قاديدك دولست هودا مدحة ميشنك USAID مدحة ايرش بروجرام مدحة كردوان وزارة فدرالك يكون دول دولة قبلها سوماليات كشقة في شركة أما دنينا إني برتان سيدي وشقيان كلونكا دمانتين وحمد الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب رنتي وحينوتها مالين قيمة بدن له وكسو بيرتي معلمها كلوميسي دلكا أين هيد إني صور مرتو لكن وحن ربعنا نحسه laga bilaabo August 22 aanu soo dhaafnay oo aanu xilka nimi ilaa maanta waxaan ka shaqeynaynay si gabdhaha way ma lahaayeen line-ka hore ee wasaaradda fisheriga sababaha keenay inaanu saayelnana qaar ka mid ah sheegayna ugu horeyn waxa ogsoontihiin ummadda Soomaaliyeed waa mujtamac reer guuraa ah kuna tiirsan xoolaha nool inta badan taasoo sooyaalka nolosha Soomaalida in badan u ahayd udub dhaxaad ilaa haddana waa laakiin waxaad moodaa in aan helmaanay xoog kasta oo la galiyay dhulkeena waxaa ka weyn badda aynu leenahay waxaana ka badan wax badan khayraadka iyada ku jiro midka bannaanka yaala si markaan u isticmaalno waxa qasab noqotay hooyada oo asaas u ah nolosha dadka Soomaaliyeed ee adduunka oo dhan in ay imaato garaad ahaan iyo tababar ahaan inay fahamto waxaas in laga faa'iideysto waxaan ula jeednaa saaksoontiin marka luqadaha lagu weydiinayo waxa la yiraahdaa luqadda aad u dhalatay mother language iskuul looma galay waxa ku barto hooyada haddii marka ay gabdhuhu nala qaataan inuu kalluunka yahay priority oo ay geliyaan hantida ay haystaan oo sida dahabka ay u horumariyaan kalluunka oo sida ay dharka u horumariyaan ay kalluunka u horumariyaan oo sida ay wiilashooda iyo gabdhahooda wax u bareen ay u baraan inuu kalluunka priority yahay waxaan aaminsanahay si gaaban oo dhow inaan hadafka aan ku gaarin si loo gaaraysiga noocaas ayaa waxa khasab noqotay inaan shir wada tashi kan oo kale isugu imaano iswareysano oo dhahno maxaan qaban karnaa kalluunku wuxuu muhiim u yahay ganacsiga waxaan rabnaa sidaan sheegnay inay gabdhaha hormuud ka noqdaan maadaama ragga Soomaaliyeed ay ka gaabiyeen waxay uga gaabiyeen waxa weeye dhaqan ahaan ganacsi kale oo nooc kale oo tiro badan ay yaqaaneen kaas ay ku mashquulsan yihiin marka waxaan u aragnay inay tahay meel bannaan oo ay si dhaqso ah gabdhaha buuxin karaan kana dhib yar ganacsiyada kaleeto meelo badan waxaan ka sheegnay in saameyn ugu yeelatay argagixisada dhibaatooyinka ay mujtamaca u geysatay Soomaaliyeed gaar ahaan hooyada iyo carruurta waxa ogsoontihiin 14 Oktoobar wixii Zooba ka dhacay waxa ku dhintay gabdho Soomaaliyeed iyo hooyooyin waliba ka ganacsanayay hilbaha lagu iibiyo wadada wixii ka dambeeyay waxaan garanay inay u baahan yihiin in meel safe ah ay helaan oo ay ku shaqeystaan sida in loo sameeyo kawaana kalluunka lagu sameeyo iyo suuqyo ay ku ganacsadaan oo kalluunka iska leh wadada dhexdeeda ka tagaan muddo dheer kadib oo aan hawshaas wadnay islana soo qaadnay annaga USAID-ka iyo mashruuca ice program waxa suura gashay maanta inaynu shirkan isugu imaano oo noqon doono bilowga maalgelinta dhaqaalaha iyo ganacsatada khusayso
inay ka shaqaysaan kalluunka oo gabdhaha ah waxaan ogsoonahay haddii aynu isla qaadanno maanta priority-gaas sanadka dambe haddoo kale inaynu haysan doono shirkado waaweyn oo ay gabdhaha maamulaan oo kalluunka dhoofiyo kalluunka muxuu marka chance ku leeyahay iminka horta dowladda iyo xukuumadda hadda priority wuxuu yahay in laga shaqeeyo kalluunka la dhoofiyo lana dhiso infrastructure-kii asagoo lahaan jiray hadday ahaayeen maraakiibtii tekadihii iyo transportation-kii u baahnaa cold storage-yadii iyo suuqyadii intaba waa ganacsi iyo maadaama muhiim u ah adduunyada aan joogno dalabka noo yaallo haddii dadka Soomaaliya dhan ka shaqeeyaan kalluunka ma dabooli karna dalabka aynu ka hayno adduunyada kalluunkii loo dhoofiyaa dalkan ilaahay wuxuu ku manaystay 4 meelood ee ugu waaweyn ee kalluunka dunida ku arooro meel ka mid ah ee Soomaaliya waxaa ogsoontihiin kalluunka loo yaqaan guuraaga ee socdo anagu 2 season ayuu dalkeena soo maraa oo 2 season waxaad ku garan kartaan mar buu tuunaha kiiladii ka gaaraa xamar 0.5 ama $0.5 marna waa la daadiyaa mar rab in la daadiyo waxaan rabnaa inaan u sameeyno talaagada lagu kaydiyo oo aan ku dhoofino haddii marka aynu shirkado samaysano content gareeya kalluunkaas ururiyo waxaanu helinayaa suuqadeenu geyn lahayn diyaar noo ah wasaaradda marka maxaa saaran iyo adduunyada ina caawinayso saaxiibaha nahay sida USAID iyo tiimka la midka ah inaynu keeno qalabkii inaynu tababarkii qofka Soomaaliga u tababarno inuu kalluumaysto rasmi noqdo iyo aqoonti iyo facility u baahan yahay intaba gacanteenu ku heynaa dalka mashaariic waaweyn oo kalluumaysi ku saabsan ayaynu insha Allah ka bilaabi doonaa goordhow mashruuc waxaa jira isla fulin doona anaga World Bank-ga oo aan isagana idin yeeri doono markaan ku dhawaaqi doono mashaariic badan baa jiro oo aan u diyaarinay in hadda kadib dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan gabdhuhu marka waxaa jira microfinance bangiyada iyo maxay ay tahay hay'adaha ku shaqada leh inay wax maal galiyaan iyo bangiga horumarinta dalka oo hadda goor wada ogtiin in aad loo active gareeyay waxaanu kala hadalnay inay maal galiyaan dadka ganacsada yaryarka ah ee gabdhaha ee kalluumaystada ah wasaaraddu waxay toos u caawin doontaa company kasta oo gabri leedahay oo raba in loo maalgeliyo kalluunka annagoo la geli doona meel walba oo waxa ka helayso qofkaas dalka waxaan hor u niri Soomaali u tiri biyo saacbada lagu dhirka haddaanu ka faa'iideysan khayraadka aynu leenahay oo aanan kalluunkeena soo saaran oo aanan xoolaheena si fiican u dhaqan oo aanan maxay ahayd dalka dhaqaale aanan soo gelin oo aanan ka maarmin ku tiirsanaanta iyo kaalmada dibadda dalku xor ma ahaanay wax banaanay waxaa ku badanaya damaca waxaan ogahay qofka Soomaaliga ma aaminsana in laga qaadan karo dalkiisa waana sax laakiin waxaa la rabaa in lagu daro soo jeed oo aadan noqon qof baahan xor ma aha ma fahamto qof baahan waxay Soomaaliya tira gob ma aha qofku markuu bariyo tomo oo gacanta horsado gob ma aha gobonimay soo dhiman tahay meeshii looga bixi lahaa waa halkan haddii aanu raahno aanu raadina macdan aanu raadina petrol aanu raadina wax kale waxay u baahan yihiin technology badan investment tiro badan iyo wax nooga xiran geopolitics-ka adduunyada iyo siyaasadda dibadda laakiin kalluunka easily qofka haddii reerka saaka go'aansada inay maanta soo jalaabtaan kalluun isla maanta ay soo heli karaan waxay ku noolaadaan marka waxaanu leenahay meeshaan waa meel dhow taklifad iyo maxay ahayd oo kharash aad u badanna uusan nooga baxayn dowladdu inay casriyeysa oo ay la sinta kalluunka dowladaha kale siduu yahayna waa ballan qaaday waana sameynaynaa waxaan u baahannahay marka dad go'aan leh
oo gabdhaha iyo hooyooyinka bilaabanayo maxaa yeelay waxaa la yidhi af Soomaaligu waxa la ahaanta gunta laga tolaa haddii sun gabadhu aysan iyada nala qaadan siyaasadda kalluumaysiga dalka waxaan ognahay wax badan baa naga dhiman marka waxaan rabnaa inaan meesha sax ka bilowno oo gabdhuhu dhiirigeliyaan iyagoo ka shaqeeyaan innaga iyo dawladda iyo xukuumadda iyo waxa nooga baahdaana waxaanu nahay diyaar inuu garab istaagno marab in aad u dheereeyo shirkan uu inoo furan yahay waxaa jiri doona saan filayo aqoon wadaarsi iyo doodo ku dhex jira shirka aad baa u mahadsantihiin si aad usoo qayb gasheen iyo meelaha aad kala timaadeen waxaan ku soo dhaweynayaa wasiir Fawziyo waa wasiirad kolley aad ogtihiin oo dee fikirka wasaaradaheena ku jirto